adinka dagaalanteen oo iska saarteen Soomaa haday soo noqdaan maxaad sameynaysaa wala dagaalameyna shicib iyo caruur iyo haween kullu waad ku kicinaysaa dhagaxad ku karaacaysaa dhagax iyo fash waxa kala lixin male These guys are those who hosted the TFG and Ethiopians from Hiran region. They are fighting and they can see now we're at the front line. Ethiopians are just very close to magaca walaal waxa la yiraahdaa Abdi Ismail okay qoliyahan gurtida ayaa noo yiri waxayna noo sheegeen in halkan laga dhici rabo xoolo oo rijiga laga dhici rabay markaan diyaar garownayna oo meeshii ku baxnayna waa akhbaar kala naga hortimid oo waa iska laabteen ilaahay mahadi askari ma hajirto mase waa wax lagu qasbay waa lagu qasbay anigu askari ma aha jirin inaan hadda sii ahaadana ma doonayo markaan nimankan iska saaro noloshayda caadiga inaan ku soo laabtaan doonaya anigu darawal in tareebaan aha jir oo dhuxul ku qaatay in tareeb dad badan baa garanay xafada waxa uu kalifay ciidamada Itoobiya iyo dadka mujrimiinta ah soo raac baasna ciidanka xagga jooga asma haysta oo la yiraahdo Muuse maxaa cawaad waa saddex ciidamadu hadda intaana bas ciidamo badan baa noo jira meesha gadaale oo jira dhinacan ciidamada jira ayagana dhinacantii Ismail meeshan ayay gaadiidka uga tageen sababtoo ma jirin jid geey kara meesha furinta hore u socdeen ilaa 5-7 kiiloomitir ayaan u lugeynay hadda waxay ku soo laabateen meeshii gaadiidka ay uga tageen waxaan rabnaa inaan aadno magaalada Buulaburti oo xoogaa fiican noo jirta sidaan ayay maalin kasta sameeyeen caruurtooda meel ay uga soo tageen noloshooda meel ay ku soo laakiin waxay taagnaayeen qaranka Soomaaliya difaaciisa waxaan isleeyahay waa wax loo ahay waa wax maranay oo maanta qof kasta Soomaaliya uu ku faanay ma doonayaan inaynu dawladano ma doonayaan inaynu dawladano ayaan doonaynin wiidigeena durduran jiray wiidanahooda samaysan jiray wiidigeena durduran jiray wiidanahooda samaysan jiray aynu dilaynu dagaale kadibtoonada dadka magaalada Buulaburti ayaa nimid meeshani waa xarunta magaalada Buulaburti dadkan aan wareysanayo af Ingiriisan ku hadlay dabcan sababtoo ah barnaamijkii wuxuu ahaa xaqiiqo raadin aan doonay inaan adduunka ugu bandhigo jariimada iyo dulmiga Itoobiya iyo Soomaaliya ka geysatay marka luqadda Ingiriiskan ku hadlay waxaan ku qasbanaa marka inaan af Soomaali dul saaro si aad u fahantaan waxaan ka hadlay dadkan waxaan wareysanay maamulka haya maxaa dareemaysaa masiidad saga saartay Itoobiya isbedelka ay magaalada dareemaysaa maxay tahay dabcan dukaamadii baa furay noloshii baa dib u soo laabatay maqaayadihii baa furay dadkii baa dib u soo degay magaalada laakiin kuma aysan dhicin wax iska fudud waxay ku dhacday dhiig iyo naf ayaa loo huray Soomaaliyana arrintan oo kale ma ahan inay ilowdo adinka dagaalanteen oo iska saarteen Soomaa haday soo noqdaan maxaad sameynaysaa wala dagaalameyna shicib iyo caruur iyo haween kullu waad ku kicinaysaa dhagaxad ku karaacaysaa dhagax iyo fash waxa kala lixin male